بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo kale waxaan soo xusuustaa hadda ka hor waxa la yiri rax ayaa wuxuu deynsaday xilligii jiilaalka biyo hal isiri intii roobku ka da'ayo waa la deemiyay biyo ayuu cabay jiilaalkii kaga soo baxay roobkii ayaa da'ay balli biyo asoo ku kor fadhiya oo xumbada iyo biyaha balliga oo gebiyada jabsaday yaa loo imaaday xalniyo deyntii biyaha inay lagu siiyay xilligii jiilaalka roobku ku da'ay biyihii iska soo celi afmayma ku sheegay wuxuu yiri ay mirle maaslo warsadeen yaaba maskaxayo maanta deyn la weydiinaya niyo iga la xoog maanta asma warsadeen farxad ba meesha bal marka ay soo noqoyn macnaheedu waxaan ka wadaa xafladda ardayda markay saafka la isugu yimaado hadalla iyo khudbo laga ma gaaro hambaliyo ay mirle maaslo warsadeen waa aad ugu faraxsanahay inaad qalin jabiseen maanta idinka iskale dhalinyarada Soomaaliyeed madrasada Banaadir Zone bahda waxbarashada ay sharaf u tahay taariikhda hore wax baran jirnay markaan soo xusanana waxaan soo xusanay waqti hore inay ahayd laakiin haddana maalin kasta markii aan xafladahan oo kale ka soo qayb galno oo sanad walba dhalinyarada soo baxaysa qalin jabinaysa aan la qalin jabino waxaan soo qaadanaa dugsiga sare in hadda dhamaynayno marka farxad ay noo tahay inaan idin la joogno rajaad noo abuurtaan wadanka oo dhan ay rajo u abuurtaan dhalinyaro waxay ku tusaysaa meesha loo socdo waxaa li taariikh hore waxaa jirtay wadanka la dhigi jiray Andalus yaa waxaa joogi jiray dadka muslimiinta wadanka hadda Spain iyo Portugiiska 800 oo sano ayay joogeen oo xadaarada islaamka ay ka dhiseen oo ilaa hadda raadkeedu uu ka muuqdaa markii la rabay in laga qaato lagala wareego ayaa sahamo la soo diraayo Ilaahay bal dadka muslimiinta meesha jooga xilligii la jabin lahaa miyay joogaan naga soo fiiriya waxa laga soo bilaabay ganacsatada waxa la yiri alaab aan wadanka markaas oolin ha loo geeyo waa la qaaday banaanka alaabta la geeyay waxa la yiri ganacsatadii noo imaada alaabaan idin haynaa dhowr qof oo kamid ah way tagay waxa la alaabtan taalo idin keenay suuqa ma taalo hal idin ku wareejiyo idinka suuqa geysta faa'iido badan ka hela waxay yiraahdeen ganacsatadu intan kelima ah walaalahan kala jira oo ganacsiga lagu la jira kaligeed ma faa'iideynaa waa wada faa'iideynaa ayagana waa u yeeraynaa intii markaas hawshaas qaban lahayd ayaa loo yeeray si walaaltinimo ay ku qaybsadeen suuqii geysteen way wada guuleysteen waxa la fiirinayaa isku xirnaanshaha bulshada iyo mustaqbalka sayta waxay dhaheen meeshan meel la geli karo ma aha dadkan waa dad soo jeeda naga daaya muddo dheer ka soo wareegtay haddana waxa markale lagu noqdo meeshii maalinkii hore kulanku ka dhacay oo tijaabadii hore lagu galay ayaa haddana waxa loogu yimid wiil dhalinyaro ah oo ooyinaya waxa li maxaa kugu dhacay oo inaysaa wuxuu yiri gabar aan saaxiibanahay aan halkan ku balansanayn oo ii goysay marka taas aan ooyinaya markaas aan alaana umad markay rabto inay jabto hamigooda saas uu noqdaa shalayna waxay ahaayeen dad ganacsigooda iyo walaalnimadooda xoojista maantana dhalinyaradooda waxay ka fikirayaan waxaan macno lahayn oo yaani wax weyn ugu fadhinin ayaa la weyn haday jabaan hada weerar lagu qaado sidii lagu jabiyay hada waxaan ka wadaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo xafladahan oo kale isugu imaanaya markii mustaqbalka la fiiriyo waxa ku soo baxaysa wadankaani kor ayuu u socdaa wuu guuleysanayaa idamka Ilaahay wuxuu ku guuleysanayaa bahda waxbarashada oo ubadkan sanad walba soo saaraysa intaan iyo in ka badan iskoolada jaamacadaha meesha umad ay ka hormartana waa tacliintii waxbarashada quraankeena aayadii ugu horeysay ee soo degtayna waxay ahayd iqra akhri marka in wax la akhristo waa horumarka marka runtii waa farxad naftiina anfacaysaan waalidkiin baad anfacaysaan wadankaad anfacaysaan ummadda islaamka guud ahaan ay anfacaysaan marka waxaan ilaahay hambaliyo meel fiican aad soo gaarteen dugsiga markaad soo dhamaysateen haddana jaamacadaad galeysaan marka falaadho markii hore wadankeena burburkiisu hoos ayuu u socday marka salki ayuu burburkii gaaray bahda waxbarashadu waxay ku guuleysteen inay falaadhi hoos tagtay ay soo wareejiyaan ay soo jeediyaan kor ay u socotaa marka shalayna hoos ayaa loo socday maantana kor ayaa loo socdaa
kor u socodkaas u sii socdo marka dambe meesha ugu koraysa ee qimada la yiraahdo ayaan wada gaari doonaa insha Allah wada guuleysan doonaa marka aan balyaad leeyahay hadalkeedu kuma badinaayo waxaan ku faraxsanahay dhalinyaradan maalin walba saan oo kale aan wala soo qayb galayno amalkii wadanka rajadii wadanka ayaa tihiin mustaqbalkii ayaa tihiin qof walba waxaad ku tala gashaa mas'uuliyadda ka saaran wadankaaga iyo ummadaada min shaacira ayaa wuxuu dhihi jiray yani haday dadku yiraahdo idal qaala alqawm man alfata dadku haday dhahaan yaa rag ahay haday dhahaan oo xaaladdu ay tahay yaa hawshaas qaban kara khiltu bi annani uniitu waxaan isu qaataa in aniga ila jeedo mar waxaan rabaa dhammaantiin yaa Soomaali ahay wadankan dhibka yaa ka saaraya markii la yiraahdo in qof walba uu yiraahdo aniga waa qofkii ka saari lahaa marka qofkaas markuu aniga yiraahdo aniga iyo anigeedii oo la isku daray ummad ayaa ka soo baxaysa aad u mahadsantiin Allah idin barakeeyo cilmiga naafic Allah ka dhigo salaamu calaykum wa rahmatullahi